waxaa maanta magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle lagu soo gabagabeeyay kulan dib u heshiisiineed oo loo qabtay bulshada ku nool Jowhar. kulankan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa gogol xaar u ah dhismaha golaha deegaanka magaalada Jowhar oo dhawaan la qorsheynayo dhismihiisa in la guda galo. kulanka waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowhar. gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Ismaan Maxamed Mukhtaar Baari oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa ku baaqay in la balaariyo dib u heshiisiinta lana gaarsiiyo deegaanada kale ee hoos yimaada Jowhar. maalmahan waxaa jirto shacabka waxyaabo ay ka dhawaajinayaan sida maxaan ku yiraahdo qof deegaanka in wax u noqoto si ay ugu soo noqdaan waxyaabaha maxaan ku yiraahdo dakhliga maxaan ku yiraahdo meelaha lagu cunayo sida qurbo joogta waxaan jeclaan lahayn Ismaan Maxamed Mukhtaar ayaa leedahay Cumar Maxamed Mukhtaar ay dhashtay oo jooga Mareykanka wuxuu la mid yahay Ilhaan Cumar in uu Mareykanka wax ka qaato laakiin inta uu soo doonaan soo dhaweeyna taasoo ugu gol leenahay waliba in ninka hadii uu qaato lacag uu qaato oo mushaar qaato oo shaqaale yahay in lagu cuno Jowhar ay ku baxdo Jowhar laakiin xamar aan la aada ugu yaraan anaga ma ogolaanayno. marka dib u heshiisiinteena waxaan rabnaa inay balaarato waxaan soo dhaweynaa dib u heshiin kasta oo loo qabanayo dad bini'aadan ah ama lagu qabanayo degmada Jowhar. dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Maxamed Cabdi Sheekh ayaa dadka kulanka loo qabtay kulada daarmay waxyaabihii kulanka ay ka barteen inay kula laabtaan bulshada kale ee xaafadahooda ku nool. maalmahan waxaa idin socday casharo aad ku baranaysaa qaabka dib u heshiisiinta iyo xalinta khilaafaadka loo qabto. xaqiiqdii waxaa ahayd dhaqanka odayaasha dhaqanka hadda jooga odayaashii muddada badan ee xaaladaha adkaayeen wax badan ka soo qabtay degmada Jowhar iyo guud ahaan gobolka inay yihiin hadda waxa waaye faraska waxa usha loogu dhuftaa waxa ka dheereeyo iyo wixii ayaga ka dambeeyo macluumaad ee soo gaaray adduunka ama qaab wax loo heshiisiyay oo fududahay inay wax ka faa'iideystaan ahayd. dib u heshiisiinta maanta inta aad ku barateen iyo qaabka aad wax u fahamteen aad u mahadsantihiin. Ibrahim Ali Nuur TV Universal caasimadda Hirshabelle Jowhar.